السلام عليكم صاحبيال سو dhawaada meel walba aan dunida dacalada ka joogtaan maanta waxaanu ka sheekaysanaa qisooyinka quraanku uu naga warramay qiso kamid ah tafa quraanka hadii aad akhriso oo ku tadaburto waxaad arkaysaa in badan oo quraanka kamid yihiin inay ka sheekaynayso qiso dhacday taasoo la doonayo in anagu ka cibra qaadano quraanku ma aha sheeka xariiro iyo sheekooyin malaawaalho iska socda waa qisooyin ilaahay uu wax nagu barayo noogu talagalay inaanu ku cibra qaadano ummadii hore wixii ku dhacay iyo wixii sameeyaan hadii aynu sameeyno kama fadlibadnin waxa ummadaha ku dhacna way nagu dhici karayaan soo dhawaada صاحبيال halkan waa taariikh show oo mar walba waxaan ku soo gudbinaa qisooyin taariikhi ah haddaad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto like isharna aad nagu taageerto si muuqaalku meel dheer uu gaaro maanta waxaanu ka sheekaysanaynaa qisad asxaabu sabti dadkii sabtiga cad gudbay ilaahay uu wax kale u bedelay qisadooda inaan ka sheekaysano qisadan waxa iska leh ummadii la oran jiray banu Israa'iil qayb kamid ah ay ku dhacday waxay ahaayeen qolo reer banu Israa'iil kuwa degan magaalo ku taala meel xeeb ah oo la yiraahdo Ayla waxana ay dhacdaa sida loo badan yahay badda cas xeebteeda ayaa ay dhacdaa qaasatan meeshan Ayla la yiraahdo waxay ku taalaa khaliijka la yiraahdo Aqaba oo koonfurta wadanka maanta loo yaqaan Urdun ah ayay dhacdaa halka ayaa waxa deganaa qolo reer bani Israa'iil deedna Ilaahay waxa uu ku farad yeelay in maalinta sabtida ah ay cibaadada u go'aan oo aanay waxba qabsanin oo shaqooyinka kale ay ka joogsadaan cibaado iyo hawlahaas ay qabsadaan oo ay maalinta ay nastaan na ay cibaadaystaan diintoodana ay bartaan sida ayaa nabiyullaahi Muuse Ilaahay maartay ugu soo dhiibay waana ay qaateen amarka bilowgii hore laakiin in muddo markii la joogo kadib ayaa nimankani waxa ay sameeyeen macsiyo ay sameeyeen amarkii Allah ay khilaafeen deedna waxa ay xad gudbeen maalintii sabtida sida quraanka Ilaahay ku yiri walaqad alimtumul ladina i'tadu minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin hadaba wada sidee ay wax u dhaceen nimankan reer bani Israa'iil ee deganaa meeshan xeebta ah ee loo yaqaano Iyala ay ku taala xeebaha badda cas ayaa dadkoodii wanaagsanaa maadaama aynu ka soo hadalnay in sabtida la yiri waxba qabanina ay cibaadista ma lixda maalin oo kalena noloshiina iyo maciishadiina ka shaqeysta ayaa waxa ay sameeyeen Ilaahay ayaa waxa uu la doonay inuu imtixaamo nimankani waxay ahaayeen maadaama ay deganaayeen meel xeeb ah niman waxay ahaayeen kalluumaysta oo shaqadoodu ay ku tiirsan tahay badda magaaladani waa magaalo barwaaqa oo kalluunka ay badda ka soo dabtaan nolol barwaaqa ayay ku nool yihiin dadkani marka Ilaahay baa waxa uu doonay inuu imtixaamo oo maalintii sabtida ahayd oo Ilaahay ku imtixaamo sabtidan ayaga Ilaahay umuusan doorin laakiin ayaga ayaa doortay sida daraadeed baa Ilaahay doorashadooda uu u yeelay oo markii hore nabiyullaahi Muuse wuxuu amray in maalinta jumcada ay nastaan oo ay Ilaahay weyneeyaan laakiin waa ay khilaafeen waxay yiraahdeen nabiyullaahi Muuse maalinta axadda ayaa Ilaahay khalqigiisa uu abuuray sida aad ka warqabtaanba abuurka adduunkan Ilaahay wuxuu abuuray maalinta axadda sabti isniin talaado arbaco ilaa jumca laga gaaro adduunkan iyo abuurkiisa ayaa la waday maalin dhulka ayaa la abuuray maalin cirka ayaa la abuuray maalin dhulka ayaa buuraha la geliyay maalin dawaabta waxyaabaha la yiraahdo ku dhex socdo xayawaanada iyo waxyaabahaas ayaa lagu beeray ilaa lixda maalin ayaa Ilaahay waxa weeye si quraankiisa uu ku sheegay ayuu dhulka iyo cirka iyo waxa ku dhex suganba lix maalin ayaa Ilaahay ku abuuray nimanka reer bani Israa'iil markuu yiraahdo nabiyullaahi Muuse maalinta axadda ayaa Ilaahay wuxuu bilaabay khalqiga abuuritaankiisa sida daraadeed maalinta sabtida ayaa Ilaahay nastay sida ayagu ay sheegayaan Ilaahay baa ka hufan waxa ay tilmaamayaan Ilaahay ma uusan daalin si uu nasto oo kan quraankiisa ku oranayo walaqad khalaqna as-samaawaati wal arda wama baynahuma fi 6 ayaamin wama massana min luqub dhulka iyo cirka iyo waxa u dhaxeeya waxaanu ku abuurnay lix maalin manana taabanin wax daala sida daraadeed waxay yiraahdeen khalqiga Ilaahay wuxuu abuuray axad ilaa jimco sabtidana wuu nastay ay yiraahdeen ciidan billah sida daraadeed anagu maalinta sabtida ah ayaa nabiyullaahi Muuse annana aanu nasanayna oo aan wax shaqo aan qabanin Ilaahay sidii ayagu ay sheegteen ayaa uu yeelay maalintii sabtida ayaana la yiri maalinta waa inaad maalin aan la shaqeynin ay idin noqonto oo maalin ciid ay idin noqoto sida muslimiinta anagu maanta ay maalinta jumcada ay noogu tahay maalin ciid oo shaqooyinkii waxay aynu ka nasano dadna waxa ay sameeyeen maalintii sabtidii ayaa kalluunkii badda ku jiray oo dhan ayaa maalintii sabtida ayuu xeebta imanaya maalmaha kalena kalluunkii waa la weynayaa oo badda gunteeda ayaa u galaya oo doomaha hadii la qaato xitaa si fiican looma soo arkay meesha Ilaahay wax ka wada moogtahay waxay yiraahdeen Soomaalidu waxa weeye halka Ilaahay wax ka wado dameera nirga ka dhalmay ali jir hadaba wada sabtidii markii la gaaro kalluunkii ayaa xeebta soo dhoobanaya markii sabtidu ay dhamaatana kalluunkii oo iska baxa baddiis ayaa u galaa ayana maalinta labaad ayay baxaan oo axad isniin talaada dooma ay qaataan wayna ku soo rafaadaan oo helitaankiisa maalmo ayaa laga yaabaa in badda ku jiraan wax kalluumana aysan soo helin nimankani markii daba mid ayaga kamida ayaa waxa uu ku fikiray fikrad shaytaan ah waxa uu yiri ka waran hadii aan maalinta sabtida aan shabaagtida badda gashto kadibna oo sabtiga ay galo kalluunku axadana aan soo dabto maadaama laga reebay aniga inaan sabti waxba malaay aan soo qaban maba soo qabanayaba maalintan sabtida wax malaay gacanteedii ku soo qaban maayo laakiin shabaq ayaa badda gashanaya shabaagta wixii igu dhacana axad ayaan la soo baxaya xeelada ayaa u bilaabay ninka kamid ah qolada reer bani Israa'iil deedna sidii ayaa uu sameeyay shabaagta ayuu badda gashtay axad markii la gaarana aayar ayuu kalluunkiisii kala soo baxay shabaagti kalluunkii ayaa uu dabka saartay waa uu shiishay deedna reer bani Israa'iilkii kale ayaa waxay carfiyaan carafti ka soo baxaysay kalluunkii la shiilay kadibna waxa la is weydiiyay war maanta kalluun ma yaalo kalluunkii saaka la wada doonayay maxay tahay caraftan kalluun ee
soo baxayso ninkii ayaa u yimaadeen waxayna ku yiraahdeen war maxaa qaldan sawtiile la ka reebay inaanu sabtiga aan ugaarsano oo badda galno maxaad ka wada kadib wuxuu yiri war anigu sabti maan ugaarsanin waxa weeye shabaag ayaan badda gashtay kadibna maalintii axadda ayaan la soo baxay kalluunkaygu aniga sabti wax laga reebay sabtina wax kalluuna lama soo bixin in badan oo kamida reer bani Israa'iilkii deganaa magaalada Eyle ee xeebta badda cas ku taala qorshihii ninka ayaa ay qaateen waxaana ay sameeyeen shabaagtii ayay maalinta sabtiga badda ku aruuriyeen sida ayaana malaayga uga buuxsamay maadaama Ilaahay ku imtixaamay oo maalinta sabtida oo kalluunku soo dhoobanayo xeebta waxa kale oo ay sameeyeen waxay qodeen togag ama kanaalo ayaa ay badda ka soo jeexeen ilaa guryahooda ayay soo jeexeen si malaaygu ugu soo aruuro oo uga soo buuxsamo kanaalada ay qoteen waxaana ay u sameeyeen qaab malaaygu uu soo geli karo laakiin malaaygu uusan u laaban karin oo kolka biyuhu iyo baddu ay caariso oo baddu ay gadaal u caariso malaaygu si uu ugu jiro kanaalada qaab noocaas ayay u sameeyeen nimankani waxay la yimaadeen xeelada khabiisada ay xun Ilaahay ayay isku dayayaan inay dhakraan Ilaahayna waxa ay sameynayaan oo arkaya dabada wada arintaas markii dhacday dadkii magaalada ku noolaa waxay u qaybsameen 3 qaybood qolo waxay yiraahdeen war maxaa qaldan sawti Ilaahay naga reebay inaan maalintan sabtida aynu kalluumaysano maxaad sameynaysaan war arrinkani waa xeelad aad ku baneysanaysaan wixii nala ka mamnuucay jooga nimayahu oo Ilaahay yaanu idin ciqaabin oo ciqaab adag ba arrinka ka dhalanayso war Ilaahay ka baqa oo joojiya amarka Alle oo aad jibinaysaan maalinta sabtidana waxba ha qabanina ee iska daayay laakiin nimankani way dhiga adeegeen shaqadoodii ayaanay sii wateen waxaana ay ka sameeyeen arrinka asaga ah lacag fara badan maadaama ay ganacsi u bedeleen hawshiiba oo sabtida ayaa la ugaarsanaya oo malaaygi shabaag loo dhigaya oo kanaala loo soo jeexaya axadda marka la gaarana malaaygi oo halka xeebta dhooban ayaa aayir la soo guraya nimankii ganacsi badan ayaa ay ka sameeyeen ilaa ay tujaar ka noqdeen oo milyaneer ay ka noqdeen arrinka asaga ah dabada wada si aan ku soo sheegay dadkii magaalada deganaa waxay u qaybsameen 3 qaybood kuwaas macsida ku kacay oo arrinka sameeyay oo maalintii sabtida Ilaahay ka reebay ugaarsanay qoladii labaadna waxay sameeyeen way ka nahiyeen oo waxay ku yiraahdeen waa arrintani waa khatar iska joojiya ha sameeynina qolada saddexaad ayaa jirtay qolada saddexaadii aamuska ay door bideen oo way iska aamuseen qoladii xumaanta sameeynaysi kamaanay reebin oo afka ay iska qabsadeen bal inta kuma ekaanine qoladii xaqa sameysay xaqa la jahartay ee qoladii xumaanta ku kacday ka nahiyisay ayaaba ayagu la sii doodeen waxay ku yiraahdeen war maxaad wala hadlaysaan oo wacdinaysaan qolo Ilaahay cadaabayo ayaga ayaaba qaladkan galay Ilaahayna wuu ciqaabayay maxaad maartay uga nahiyinaysaan oo aad wala hadlaysaan qoladan Ilaahay cadaabayo qoladii macruufka sameynay waxay ku yiraahdeen ugu jawaabeen laba arrin ayaan arrinka u sameynayna oo qoladan waxaan wanaag u faraynaa laba arrin darteed inaanu marka hore aanu Ilaahay cudurdaar ka helno oo Ilaahay aanu ku niraad Ilaahay wanaag waajibkanaga waan gudanay nimankaana xumaanti waanu ka reebnay waa mid labaad lacallahum yattaquun laga yaabo in Ilaahay ka baqaan ama qof ayaga kamidii uu waan toobo oo xumaha sida uu haro sida ayaa ay ugu jawaabeen hadaba daawade arrinkii ma uusan sii dheeraanin dadkii maadaama magaaladii la wada degan yahay ay la yiraahdeen xeebta dhacda magaaladii ayaa ku heshii waayeen waxana go'aan lagu gaaray in magaaladii la qaybsado maadaama dadkani ahlu macsiya ay noqdeen qoladan ay mar walba aanay ka qoosan inay ka nahiyinayso ay ka reebayso laakiin nimankani aanay reebtoomaynin go'aan waxa lagu gaaray magaaladan inaan lagu wada noolaan karin sida daraadeed magaalada la qaybsado magaaladii nimankii ahlu macaasidaha iyo qoladii kala dhaxda ay ku kala dhufsadeen waa la kala goostay dirbi weyn ayaa dhaxda laga dhisay dhinacaas shasha waxa ku nool qoladii ahlu macaasida ahaa ee amarka Alle jabiyay ee maalinta sabtida ugaarsanay dhanka kalena waxa ku nool dadkii kale wanaagsanaa ee amarka Alle qaatay ee maalinta sabtida aan waxba sameeynin bal munkarka reebayay ee macruufka faray dabada wada wax maalmuhu socdaanba maalmaha kamida ayaa waagi bariyay show ciqaabti Alle ayaa xalayba timid oo nimankaas ayaga ahaa ayaa Ilaahay wuxuu u dhalan rogay daanyeer iyo doofaaro Ibn Abbas waxa uu leeyahay iyo Qataada waxa laga wariyaa kuwii dhalinyarada ahaana Ilaahay wuxuu ka dhigay daanyeero kuwii odayaasha ahaana doofaaro ayaa Ilaahay u bedelay waatan quraanka Ilaahay leeyahay kuunu qiradatan khaasiin daanyeero hoogan noqda ayaanu ku niri dabada wada waagi markii uu bariyay subaxda kamida ayaa qoladii macruufka faraysay ee dirbiga dhankiisa kala ku nooleed waxa ay maqli waayeen wax jabaq ah hadii waagi bariyaba waxba lama maqlo awal marka waagi bariyo waxa caado ahayd in buuqa iyo sawaxanka shaqatagooda la maqlo oo waad garanaysaa sida caadadu ay tahayba markii waagi bariyo in subaxdii socodka dadka iyo qaylada iyo waxa weeye shaqataga iyo rawaxanka iyo in la maqlo ayaa caado ah subaxdanba waagi markuu bariyo waxba lama maqlayo xaradii waa silent waa wada aamus mid ayaga kamid ayaa wuxuu yiri wasaaka maxaa qaldan gormaanu wax maqalnaa balowkaadii bal dirbiga ayaan fuulaya dirbiga ayaa u fuulay deedna dhankii kale markii uu fiiriyaba daanyeer unba meeshii dhooban war waa maxaa qaldan waa u soo laabtay dadkii ayuu ku yiri war meeshii daanyeer mooyee wax bini aadana ma ay joogaan haddii albaabadii la furo la soo aadaba waaba daanyeer ayaa Ilaahay dhamaantood u bedelay nimankii markii daanyeerta laga dhigay daanyeerka aad garanayso ayaa daawada loo bedelay hadaba daawada nimankii daanyeerta Ilaahay u bedelay waxay garanayaan dadkoodii qaraabada ahaa way garanayaan
karayaan laakiin ma hadli karayaan kuwii macruufka fariyay ayaa u yimid oo ku yiri soo idlama inaan hadlin soo idkuma aanan dhihin arrinkan ka jooga ma hadli karayaan laakiin madaxa ayaa waxay ka ishaarayaan ha waadna tiraahdeen deedna midka daayarka laga dhigay wuxuu ahaa kii yimaada oo dadkii qaraabadooda oo dhanka kala ku noolaa u yimaada deedna dharkooda kii shumiya ayaa u ahaa oo sidaas indhaha ayaa laga garanayay ayay sheegaan mufassiriintu oo halka indhaha kaliya ayaa laga aqoonsanayay inuu ninkan yahay hebel markii daayarka loo bedelay kadib dabadaa wada arrinka ayaa ilaahay ku sameeyay nimanka iyaga ahaa 3 maalin ayaana ay noolaayeen waxaana tiradooda lagu qiyaasaa sida ay mufassiriintu sheegaan 70,000 oo bini aadan ah inay ahaayeen dadka ilaahay u bedelay daanyarada iyo doofaarada laga dhigay marka 3 maalin kaliya ayaa ay noolaayeen oo maalintii saddexaad mid ayaga kamid ah dhamaantood 3 maalin kadib dhamaantood waa ay dhamaadeen oo ma aysan nooleen halka ay ku halaagsameen wax nasli ah ama taranana kamaanay tigin oo ayagoo idilba halka ayay ku go'een oo ay ku dhamaadeen qoladii kale oo macruufka faraysay wanaagana xumahana reebaysay ayaga waa la badbaadiyay oo ilaahay ayaa badbaadiyay sida ilaahay ba kaga waramay suuratul a'raaf waa la badbaadiyay qoladii saddexaad ayaga waa lagu muransan yahay halkay ku dambeeyeen kuwii aamuska waxa way doortay oo xumaha reebi waayay wanaagana fari waayay iska aamusay yiri maxaad ula hadlaysaan qolo ilaahay cadaabayo oo ayaga xumaanta doortay kuwii sida u hadlay ee xumaanta reebi waayay waxa la yiri oo mufassiriinta qaar ay leeyihiin nimanka ayaga ah waa la cadaabay oo ayaga ayaa la raacsiiyay qolo ayaa dhahaya qolana waxay leeyihiin ma lama raacsiinin oo nimankaasi waa ay baaqi noqdeen laakiin waxa la hubaa kaliya waxa weeye in kuwana daayar laga dhigay kuwa wanaagsanaana oo munkarka reebayna ayana la badbaadiyay oo ay soo hareen oo ay joogeen وكان إلهي قرآن كيسا كورانيا سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إلى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون مركا يرادين قولدي السدحات ورمحات قولدان أوان نيسان إلهي بابا عذابيه قولدي معروف كسميني وحي كويرادين وجوابين لبا أرن أيان أركا أصمينينا qoladan waxaan wanaag u faraynaa laba arin darteed inaanu marka hore aanu ilaahay cudurdaar ka helno oo ilaahay aanu ku niraad ilaahay wanaag waajibkanaga waan gudanay nimankaana xumaantii waanu ka reebnay waa mid labaad lacallahum yattaquun laga yaabo in ilaahay ka baqaan ama qof ayaga kamidii uu waantoobo oo xumaha sida uu aharo sida ayaa ay ugu jawaabeen hadaba wada asxaabu sabti sida ayaa nimankii sabtiga xad gudbay ilaahay maartay oo ku halaagay daanyeero iyo doofaarana ilaahay ugu bedelay sida ayaanay ku dhamaadeen wax tarana ama ubadana ma ka tigin oo sida ay ku dhamaadeen oo ilaahay ugu dabar jaray waxana ay noqdeen cibratan liman yactabir kuwa lagu cibro qaato qofkii cibro qaadanayo oo waxa loo baahan yahay ilaahay hadii uu wax reebo inaadan xeelad la imaanin aad arrinka ku banaysanayso dabada wada qisada asxaabul sabti ayaan kula wadaagay hadii halkan soo gaartay aad baad u mahadsan tahay la soco muuqaalka xiga channelka subscribe saar aad baad u mahadsan tahay